waxaan rabaa inaan ka hadlo oo soo jeediyo qiso yar. barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay cilmi. waxaan jeclahay boqolkiiba hal qisadan inay maqleen. qisooyinka inta badan dadku way maqlaan, laakiin qisadan boqolkiiba hal oo idin ka mid inay maqleen. intiina kalena aad ka faa'iidi doontaan insha Allah. qisadan waxay ku saabsan tahay in la yiraahdo Ashcab oo Carab ahaa. Ashcab wuxuu ahaa nin xoolo dhaqato ah ama Carabi ah oo waxba cilmi aan lahayn, sida dadku ay ka aaminsanaayeen. maalin maalmaha ka mid ah Ashcab xoolihiisii asagoo jid maraya waxaa lagu dhigtay jidgooyo. waxa laga qaatay xoolihiisii intii uu haystay, niman baa ka qaatay. Ashcab wuxuu go'aan ku gaaray maadaama awood uu soo lahayn inuu ka soo ceshto inuu aado guriga boqorka si looga soo celiyo xoolihiisii laga qaatay. Ashcab wuxuu aaday guriga boqorka, uu gargaraacay, dhowr jeer ku laabtay, waa laga furdiiday. adiga muddo bil ah uu ku laabtay, waa laga furdiiday. maalinka dambe nin baa xog siiyay, xogtaas oo ahayd boqorku maalinta jimcaha inuu ku tukado masaajid hebel la yiraahdo, halkaasna uu ka helo si uu u sheegto dantiisa. masaajidkii uu tagay, boqorkii uu ka waayay. markii boqorku uu ka waayay, wuxuu qabsaday mikrofoonka qabsada. markuu wuxuu ku yiri reer Baqdaadow soo jeesta, waxaan rabaa inaan idhaahdo hal shay, dhagihiinana iyo amaahiya. dadkii dhan waa soo jeesteen. ninkaana nin ma ahan ay ka muuqato diintii, يعني هذا يلا يا بيني كنا قلنا ساعد نين سود قبا أو تاي حرن أو كيالا قبا هذو مشاهد كمجرفون كقبص وضتهم وعدين يلا يا بيني كنا قلنا ساعد مركز ضدك يروح يكون قط لياب نين كان عندين تكمل موغن إنه ماشي استاجو كدي ماشي ممكن يسوي استاجي ضدك يسوي ذا شيستين وحيري إذا جالستا أنا واحد يستاوي يري شيء إلهي وسنه يسن طاح يستاوي يري وحن كنت معمنا هاي بيري وح وسن إلهي كنت معمنين حق وانا هاي بيراني في النظر واشعله وحنا أرجنا مرقاتنا كنا قضاء ويسلعنا واتكذا وير مركا تدكي ماشي واحد شوق علماء واحد شوق ضد عيدك الإسلام كأه ويحناقين ويستاجين سيفعل الله بحنكي سياد دين تقوى وحوي واحد يقول كتابة ليري وقدام بين ننكي نمان بهر استاجي واحد هنين كان واحد جوان كجاري كرا بقرك مركا بقرك الله وياره boqorkii waa lagu yeeray. boqorku uu yimid. markii uu yimid wuxuu ku yiri Ashcabow maxaa sida u tiri buu waxa tiri samxay ahaayeen. markii wuxuu yiri sida waxaan u sameeyay inaan helo xoolahaygii oo aad iga soo qaado dadkii iga qaatay. wuxuu yiri xoolahayga waa lagu siinayaa, laakiin waxa aad tiri oo mashaatiga ka dhex sheegtay meel u yeel mikrofoonku qabsada. markii mikrofoonku qabsada wuxuu yiri aniga waxaan haystaa buu yiri wuxuu Ilaahay haysano aniga xaas baa isugnaatay buu yiri oo carruur baa isugnaatay, لكن إلهي لما ضلين وإحنا ما ضلين سيد أصدق الشيء قرآن سب الشيء وحيري وحن كتر عمنا هيبيري وحس إلهي كتر عمنين كوس أنا وحن كتر عمنا هيبيري بين خيانة يدمر صوتها بالعني بقى، لكن أنتاس إلهي وكبري وحيري وحن تكذا ويسلان صوت أصلي يسلاد وحرس كلها صلاح وحرس كلها مركم صلي جنب كل صلينا يجمع بحنا ويسو وحيري وحن شعل هاي حقه waxaan jeclahay bil finnada waa carruurta iyo maalka iyo adduunyadu waa finno xaqana waa nabcahayo geeridu waa xaq oo geeridu waa nabca qof geeri jecel ma jiro. wuxuu kaloo yiri waxaan arag waa marqaati ka noqdaa sababtoo ah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa nabigi ilaahay, laakiin marqaati waxaan ka ahay buu yiri inuu nabiga ilaahay yahay waligeena ma arag. marka cilmigu waa waxyaabo badan waxa weeye oo ka dhunsan waxa iridoodii ku tusi kara. marka waxaan rajaynayaa insha Allah in kaliya macnaheeda ma ahan inaan qisada in soo jeediyo ee waxa weeyaan inaan ku baraarujiyo inaan naftiin aad wax bartaan si waxa weeye waxyaabo badan oo noloshiina ka dhunsan aad u heshaan insha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.